gaarigan aad arkaysaan waa gaadhidii Mahad Cambaashe waana gaadhi cusub oo markaa la soo bixiyay oo raaxa waxa ka watay markaa gaadhiga rag ka mid ah raggii la shaqeynayay Mahad Cambaashe iyo ciidamada Soomaaliland waxa sidaa u golay waxaan ku sugannahay duleedka magaalada Yagoori gaarigan iga dambeeya waa gaari nooca raaxada loo yaqaano Hari waxa lahaa Mahad Cambaashe oo wuxuu ahaa gaari cusub waxaana waday mid ka mid ah darawaladiisii oo halkan ku geeriyooday soo dhow markii ugu horeysa Mahad Haybe waxaana warbixin kooban naga siisaa gaarigan si wax soo gaareen iyo cid lahayd magacaygu Mahad Haybe Gutaale waxaan joognaa halkan waa Yagoori gaarigan aad arkaysaan waa gaadhidii Mahad Cambaashe waana gaadhi cusub oo markaa la soo bixiyay oo raaxa waxa ka watay markaa gaadhiga rag ka mid ah raggii la shaqeynayay Mahad Cambaashe iyo ciidamada Soomaaliland waxa sidaa u golay kullaayayna waxay ahaayeen nimankii saaqay la soo jibiyay la socod laga soo ceyriyay halkan markay marayeen way garanayeen tiknikada gaadhiga ku fureen iyo raggii saaraaba kuwii markaa la shaqeynayay ayaga la socday bay saa u dileen oo saa u laayeen marka waxaad ka filan kartaa kuwa iyaga la jooga iyo kuwa aan la joogin isku mid yihiin ama harti ama dhulbahante ay saa u laynayaan waxay badbaadin lahaayeen kuwii la shaqeynayay gaarigan gaari raaxa magaalada ku socday way joojiyeen baakinkaas oo galay tiknikaas loogu jarjaray saddex nin baa gaariga watay oo laba Ilaahay waa ka badbaadiyay laakiin nin baa ku dhintay oo ay si xun u dileen arxan darra marka waxaan ugu baaqayaa ragga weli ku jira Soomaaliland oo ka mid yahay Mahad Cambaashe iyo ciidankii halkan raacay cafis in loo fidiyo baan ku baaqi lahayo ay soo galaan oo dalkooda iyo dadkooda ay ku soo noqdaan marka ninkiisa si soo dhiibi karaya toobadu way furantay waa inay soo dhiibaan oo ay ka soo mid noqdaan ciidamada SSC Khaatumo ay soo dhiibaan iyo ciidamada dawladda Khaatumo adooma santa gaarigan waxa sida noo sheegtay soo bixiyay Soomaaliland Mahad Cambaashe siiyeen Soomaaliland ma u turi waayeen Mahad Cambaashe oo la socda baabuurkiisa iyo darawalkiisa way turayeen oo cidii dhabada ay ka soo baxdaba way rasaasaynayeen oo way leynayeen magaaladan hadda Yagoori joogno 4 qof bay ku dileen guumaysoona ka nimi iyo og shishadeeda 4 dhalinyaro oo ciyaal ay ku dileen oo meelaha iska galay marka ayagu cidii ka soo hor baxdaba way dilayeen oo cagtay marinayeen xoogaa dadkuna qofku tiisa gashay baa dhimanayo dadku waa badida waa badbaaday 99% oo waa laga leexday ciidamada markii dhabada marayeen kin cidii tiisa gashay baa ku dhimatay dhabada ilaa 8 qof bay ku sii dileen 4 ooga iyo 4 guumay meesha Yagoori hadda jooga 10 tiknika buu wataa iyo dhowr iyo 30 wiil qoliyaha reexin galool buu la hadlay iyagina waa ku soo baxeen baa lagu caawa wax allaale iyo wixii horgalaas hargeysa jireyna bismillaahi raxmaani raxiim soo dhawaada khiyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo meel kasta oo aad joogtaanba warar kala duwan ayaa ka soo baxaya halka uu jaan iyo cirib dhigay amaba uu ku dambeeyay taliyihii wixii loogu yeeri jiray guutada 7aad ee ciidanka Soomaaliland ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waa General Mahad Cambaashe kaasi oo indhawaalaba haadgeed waayay ahaa kuna sugnaa inta badan inta u dhaxaysa magaalooyinka Laascaanood iyo Og haddaba markii jimcihii cagta la mariyay ciidamadii maamulka Soomaaliland kaga sugnaa gobolka Sool gebiyahanna laga saaray dhammaanba gobolkaasi Sool ayaa waxaa warkuu sheegaya in Mahad Cambaashe oo ku sugnaa magaalada Og aan idhaahday magaalada lagu magacaabo Yagoori uu ka baxay magaalada kadibna dhinaca deegaanka Yeyle la yiraahdo uu salka dhigay halkaasi oo uu joogay ilaa iyo habeen hore halkaasi ayaa lagaga warqabay inkaste oo aan si rasmi ah loo xaqiijinin haddana halkaasi ayuu ku sugnaa waxaa jira haddaba warar soo baxaya oo sheegaya in Mahad Cambaashe uu ka baxay magaalada lagu magacaabo Yeyle oo uu oga dhaqaajiyay dhinaca iyo bari oo uu gobolka Sanaag halka uga qarda jeexay
sida ay ku warramayaan ilaah ogogaala oo ku sugan magaalada laascaanood ahna ehelka iyo weliba saaxiibadii hore ee generaal mahad cambaashe waxaa laga soo sheegay deegaanka degmada xiingalool ee gobolka sanaag halkaasi ayaa la sheegay inuu gaadhay waxaa la yidhi fariin ayaa waxa uu u dirsaday odayaasha iyo saraakiisha ciidanka dhinaca amniga qaabilsan ee degmada xiingalool waxa uu wataa gaadiid dagaal iyo ciidan afartameeye ah sida la sheegay waxaana uu halkaasi ka doonay in yani uu ku nabad galo oo ay yani naftiisu ku nabad gasho asaga iyo tolkiina loo kala ergeeyo bal hadda warkaasi mid ka mida saaxiibadii hore oo ku sugan magaalada laascaanood mabaadi'dana ay ku kala tageen si dhowna ay maxaan ku idhaha muddo dheer u wada shaqaynayeen warka uu nala soo wadaagay ee uu xogta uu ka haya haynoo dambeeye waxaa kale oo jira war isna sheegaya in uu ku sugan yahay magaalada burco oo uu yani baxsadkii horeba uu ku galay yani yeylu ka baxay halkaas waa qardajeexay isagaa yaqaana dhulka galabnimadii sabtida shalay ahayd ayaa uu dhex istaagay magaalada burco kadib isagii iyo saraakiil kale iyo xubno kale ayaa kulan yeeshay xaafad baa laga degay burco xaafaddii laga degay ayaa haddana lagu weeraray baa la yidhi oo caawa lagu xabadeeyey ama xalayba lagu xabadeeyey waxaana xabadeeyey baa la yidhi rag ay ehel iyo qaraabo dhow yihiin jenaraal faysal cabdi bootaan saaxiibkiisii hore maxaan ku idhahdaa ta lagu qabtay dagaalkii jimcaha warkaasi ilaa iyo hadda war la huba ma aha laakiin dhinaca loo badinayo ama xaqiiqda warka ugu dhow ee generaal mahad cambaashe aan dib oogu noqda ee warkaasi burco haddii ay wax ka soo kordhaan amaba uu noqdo mid isa soo tiro waynu arki doonaa balse dhinaca iyo magaalada xiingalool waxa uu generaal mahad cambaashe cagta saaray ayaa la yidhi deegaanka xiingalool halkaasi oo uu gaadhay gelinkii dambe ee maalinnimadii sabtida ahayd uuna ka dirsaday fariin isaga oo doonaya la yidhi in haddana lasii gudbiyo sida xaalku uu yahay waxa ku kalifay in uu saaxiibadiisii shalay ka baxsado oo uu ka cararo ama aamini waayo oo uu halkaasi magangeliyo weydiisto dhinaca iyo gobolka sanaag ama beesha warsangeliba waxaynu ka ogaanaynaa bal hadda warbixinta ku saabsan isaga yani xogta aanu ka helnay oo ay nala soo wadaageen goobjoogayaasha magaalada laascaanood raggii saaxiibada hore ay ahaayeen muddo soo wada shaqaynayeen ama muddo ay maxaan ku idhahdaa to wax walba ka ahaayeen oo markii dambena waktiga iyo waayaha adduunka ay kala wadeen bal hadda in cambaashe ahaa horta xiingalool agteeduu joogaa qolyahaasuuna la hadlay nimankii waad og tahay wax allaale iyo wixii ay wateen taangiyadii waa laga qabto 7 taangi bay wateen oo wax shaqaynayo iyo 2 abraare qaadayay 7 labana waa la gubay 5 gacantaynu ku haynaa lagaaga sheekayn maayo nimankii iska daa dhulbahante ee cidda xitaa ay harti u gartaan iyo daarood hargeysa waadiga oo guryaha loogu daatay ilaa shalay dhumaalaysi ku jiro isaga waardiye iska hayay iyagii uma tegi karo oo way dilayaan marka xaggana ma aamini karo oo meeluu ku soo noqday iyo weji uu dhigtay midna kama soo horeeyo inuu waxa weeye ilaa ay xasaynaysaa ma jirtee si yiraahdo qolyaha unbaa ku nabadgelin kara marka ninkaasi 10 technical buu wataa iyo dhowr iyo 30 wiil qolyaha reer xiingalool buu la hadlay iyagiina waa ku soo baxeen baa lagu yiri caawa wax allaale iyo wixii horgalaas hargeysa jirayna waxa weeye naftoodii baa qeyr ku jirta cid maanta mid iyaga u shaqaynayay iyo mid waxa weeye basaas u ahaa iyo mid janan u ahaa cid dhulbahantaa maanta nimankaas ay badbaadinayaan ma jirto dee adduun waxaad kaga quusataa in cambaashe caawa waxa weeye harti waxa weeye nabadgelyada waxa weeye biday yelkadeeda waxay ilaahay mahadiyey in technicadii aan isaaqay naga qabsan
tobankaa gaariga tiknikada ah ee dhowr suubaa ku jira waaba wax weyn dee sidaa ula socdo. wasalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاسي waxaa uu ka mid ahaa howlwadeennada ama xubnaha firfircoon ee dhinaca howlgallada ciidanka SSC oo ku sugan haatan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kaasi oo xog ka timid dhinaca iyo Janaal Mahad Cambaashe taliyihii guutadii 7aad ee ciidankii xilligii Somaliland ay meelaha ka jirtay ku magacownaa haatanna in dhawaalaba haadgeed waaye ahaa oo meeraysanayay inta u dhaxaysa magaalooyinka Og iyo Laascaanood, kaasi oo Somaliland u qaabilsanaa dariiqa dheer ee isku xidha Og ilaa iyo Laascaanood amnigeeda sida la sheego. sida ay dooniba ha noqotee Janaal Mahad Cambaashe ayaa la aaminsan yahay in ay haatan isaga iyo saaxiibadiisii hore kala dhaqaaqeen oo aanay jirin wax isugu hadhay kadib dhibaatadii dhacday maalinimadii Jimcada ee cagta lagu mariyay dhammaanba ciidamadii Somaliland ee ku sugnaa gobolka Sool ee waddanka Soomaaliya, halkaasi oo dagaal khadhaadh oo ka dhacay la isugu awood sheegtay. waxaana la leeyahay wararka kala duwan ee aan helayno, war waxaa jira sheegaya inuu ku sugan yahay magaalada Burco oo u gaadhay maalinimadii Sabtida ahayd duhurnimadeedii, halkaasi oo isaga iyo saraakiil kale ay ku kulmeen kadibna guri uu ka degay magaalada, gurigiina lagu weeraray oo lagu xabadeeyey oo weliba ay weerareen rag ay yihiin ehel General Faisal Cabdi Bootaan oo lagu qabtay dagaalkii Jimcada, halka war kalena sida aad maqlayseenba uu sheegayo in aysan jirin warkaasi Burco ee uu ninkii la dhihi jiray Mahad Cambaashe isagoo 10 gaadiida wata iyo dhowr iyo 30 nin oo ciidan ah uu u tahriibay dhinaca iyo gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Xingalool, uuna la xidhiidhay saraakiisha iyo odayaasha magaalada Xingalool, kuwaasi oo uu doonayo magangeliyo siyaasadeed. waxaana ku kalifay baa la yidhi arrintaasi laba arrimood oo ah tolkii oo ay kala dhinteen oo kan ila hadlaya ama warka ii soo dirayba uu safka hore kaga jiro, iyo sidoo kale Hargeysa oo iyadana hadda noqotay maxaan ku idhaahdaato barakamale gaadhay oo aan haba yaraate ee wax mid aaminayaa jirin ama aan la aaminaynin qof ka soo jeeda gobolka Sool. ma garanaya anigu dee odaygii Faratoon ahaa iyo maxaan ku idhaahdaato raggii kale ee indha midhaa uu iska tahriibiyey koore iyo raggii lahaa moojidee xaalkoodu meelay ku dambeeyeen, laakiin walaaca iyo cabsida waxaa sii kordhinaya magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Somaliland oo la arkayay muuqaalo laga soo duubay xaafado kolba mid lagu xoomayo oo la leeyahay tanna reer hebel baale, laakiin ay maaragtayto inta badan ciidamada ammaanku isku dayayaan in ay dadka guryahooda lagu yaacayo inay badbaadiyaan. siday doonayba ha noqotee akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdow, wixii ka soo kordha kolba meesha xal maraya halkan ayaan idinka soo gudbin doonaa. tan iyo sarag maqal dambe waa Galad Xasan oo daaha gadaashiisa idinkala hadlayay oo idin leh fi amaanillah.